deegaanka dhumay oo hoostaga gobolka Sool waxa mar kale ka bilaabatay dirir u dhaxaysa laba beelood oo walaal ah oo deegaanadaasi wada daga waxaana inta la rumaysan yahay dhintay 10 qof sidoo kale deegaanka dhumay ee gobolka Sool waxa galinka hore ee saaka dagaal ku dhex maray laba beelood oo walaal ah oo colaadoodu muddo soo jitamisay dhawaana shaqaaladooda lagu xaliyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaalkan ayaa khasaarihiisa lagu qiyaasay dhimashadu inay tahay 10 ruux sidoo kale waxa uu dagaalku saameeyay isu socodka gaadiidka ee u kala gooji jiray magaalada Laascaanood iyo deegaanada colaadu ka dhacday warar hoose waxay sheegayaan mar aan la xidhiidhnay deegaanka dabataag oo iyadana labada arday wada deegaan in colaadu saameysay walow aan wali jirin wax waan nabadeed oo halkaasi gaadhay haddaba waxaan qadka telefoonka ku xidhiidhnay Maxamed Cismaan Cabdinuur oo kamid ah bahda warbaahinta gobolka Sool waxa uu nooga warbixiyay balse saaka wax u dhaceen maxamed ugu horeyn waxaa nooga warbixisaa bal dagaalkii saaka ka dhacay koonfurta gobolka Sool iyo khasaaraha halkaasi ka dhashay محمد بدان شاهدني تلفزيون SBS بانترابيا dagaalka ka dhacay koonfurta gobolka Sool deegaanadiisa waxa uu ka bilaabmay shaqooyinkii dambe ayaa hal ruuxna uu ku geeriyooday mid kale oo ku dhaawacmay shaqaaqa u dhaxaysay laba beelood oo walaalaha ka hore khalaaskeeda la xaliyay taasoo arrinkaas oo dib u cusboonaysiisay dilka ka dhacay koonfurta gobolka Sool saaka galikii hore ayaa dagaal bacay uu ka dhacay ka dhumay oo labada beelood ay wada degaan dagaalkaas oo muddo dheer qaatay ilaa iyo galikii dambe ee maanta la socday waxaa wararku sheegayaan sidaan xogta ku helayo in khasaaro badan oo nafeed oo labada dhinacba uu ka dhashay iyadoo qiyaastii dhimashada sida wararka aan ku helaya ay sheegayaan in ku dhawaad tiro gaadhaysa 10 ruux ay ku nafeeday colaadaas iyadoo sidoo kale dagaalku uu ka bilaabmay isla deegaanka dabataag oo iyana labada beeloodba ay wada degaan dabcan weerarta sida loo helo khasaaraha rasmiga ee dagaalkaas ka dhashay balse dagaalku waxa uu ahaa mid khasaaro badan oo labada dhinac sababay laakiin ilaa horta ku helaya dhimashadu adigu 10 ruux ay gaadhaysaa waxaad nooga warbixisaa siyaabahay wax u dhaceen oo ah si dagaalku saaka cidda bilowday iyo bal siduu ku bilaabmay maxamed waa maasantahay horta marka beelahan colaadoodu dabcan waxay soo jeedisay muddo 10 sano gaaraysa inta badan waxaa la sugayay kulamo badan oo qodobo badan oo nabada laga soo nabada lagu xogtagayo kulanka ugu dambeysay waxa uu ka dhacay magaalada Laascaanood oo labada dhinac odayaashooda ay isugu yimaadeen waa la kaasimay wixii kulli fuwaayay xaqii ayaa loo ballansanaa in waqtigii lagu kala qaato laakiin waxaad moodaa in qodobadii lasoo saaray go'aamintoodii iyadoo laga sugayo oo markii la kala sugayo in shilkaasi uu kala dhacay taas ayaa sababay in dagaalkan maanta uu bilaabo marka dagaalku wuxuu ku bilaabmay oo arrintaas shalay dhacday labada ruux midna lagu dhaawacay midna ku geeriyooday waayahay dagaalku dabcan hadda uu socdaa waad ka dhawaajisay wax hadda ergooyin nabadeed oo labada beelood ka socda ama odayaasha deegaanka oo gaadhay meelaha dagaal ka socday ma jiraan horta sidaa wada ku helayno inta badan dadka ku nool magaalada Laascaanood iyo gudaha gobolka Sool marna ma aanay filaynin in colaad noocaas oo kale mar kale ay dib uga dhex qarxi doonto labadaas beelood marka loo eego go'aamadii iyo waqtigii dhammaa iyo tuhdigii la geliyay sidii labadaas beelood nabadooda waxaana lagu fadhiyay hadda in labadaas beelood nabadoodii ay wada qaateen oo hirgelinteedii laga sugayay deegaanada sida ka dhacdo sidoo kale waxaa cusub mudan in labada dhinac ay wadeen isku soo dhawaansho iyo isdhexgal iyo kulamo joogta nabada lagu xoojinayo marka ilaa iyo hadda sidaa warka ku hayo wax nabadeed wada oo rasmi oo ku cadeyn karo hadda baxay ma jirto laakiin in saacadaha soo socda ilaa gelika dambe ilaa caawa inay gaadhaan deegaanadaas culimays abaabushay waxgarad iyo odaal ayaa la filaya saacadaha soo socda inay ku baxo aad iyo aad